kii yidhi xalay toole roobka ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa roobka aan ku helay kii yidhi kaasi anuu ii rumeeyey buu ilaahay yidhi oo anuu ii aaminsan yahay xidigahana uu beeneeyey kuwii yidhi xalay toole xidigtii halkaa ku ururtay noo muuqatay roobka da'ayay sheegaysa kii yidhina kaafirun bi kaasina aniga ayuu maaragtaana ii inkiray xidigahana uu rumeeyey buu ilaahay yidhi marka wixii ilaahay keenay cid kale ha u nisbayn xanuun baa dilay mii xanuun ma dilin amar ilaahay baa dilay rasaas baa dishay rasaasi ma dilin amar ilaahay buu u dhintay calool xanuun baa dilay mii calool xanuun ma dilin amar ilaahay buu u dhintay hargab baa dilay hargab ma dilin amar ilaahay buu u dhintay tacaddadat alasbaabu waalmowtu waaxidun asbaabta loo dhimanayaa fara badan mooye mowtku waa mid keliya mowtku waa mid keliya malaka almowt markii loo xil saaray qabd alarwaax inuu arwaaxda soo qabto ayuu malagaas ilaahay baryo wuxuu yidhi ilaahow shaqo culus baad aniga ii dhiibtee addoommahaagii in wan wanaagsanna way leeyihiin in xunxunoo fiicnaynna way leeyihiin inta fiicani waxay odhan maayaane inta xunxuni waxay odhan doonaan malakulmowtkii baasaabaa maanta hebel ruuxdii ka qaaday toosaa odhan maayaan markaasuu yidhi ilaahay asbaab badan oo loo dhinto ayaan samayno adigaba meesha lagu soo dhigani maayo shaqo teg baa lagu yidhi hebel maxaa dilay baabuur baa dilay hebel calool xanuun baa dilay hebel hargab baa dilay hebel taacuun baa dilay hebel xabad baa dishay hebel baddaa liqday hebel daad baa qaaday hebel waraa dhurwaa baa cunay hebel malakalmood baad qabtay ma maqasheen weli lamaba yidhahdaba tabliiq hadduuna jirin nima imaadeen runtaan ii sheegay waxaana duuduubaysaan annagu maba jeclinba iminka inninkun baa nigu ixtiraamaya anigu yahay in wax layga duubana uma qalmo mana jecli waayo waxaan ku idhaahdaa annaku dadka annaka u tagno waaba soconnaaba de insha allah beritoole markaz alhidaaya ijtimaaci baa inoo bilaabmaya mudaakaradii casarka waa ka soo qayb galaynaa insha allah dhahada بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وآمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والقحل والفسق والفجور والظلم والحروب والقبيلة والعصبية وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله